الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق بسم الله الرحمن يحمله. الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta bisha abril ay tahay 26 sanadkii 2020 waxaan doonaynaa inaan ka nidhaahno ereyaro kooban cudurkan coronavirus ee adduunyadii saameeyey. ilaahay haynaga nabadgeliyo, intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto, inta u bogsan ilaahay caafiyo, inta aanu haleelina ilaahay hadbaal mariyo. maantadan aynu joogno waxaynu ognahay in cudurkaasi uu ku dhacay in ka badan 2 milyan oo dadka adduunka ku noola. waddankan aan ku noolahay USA ama America wuxuu ku dhacay in ka badan milyan, wuxuu dilay ilaa 53,000 oo qof. dadka uu dilay waxa u badan dadka dan yarta ah, muslim iyo gaalaba leh, dad masaajido ka ahaa imaamo, dhakhaatiir muslina. marka waxa weeyaan cidna ma kala reebayo. waxa weeyaan bal horta dadka ugu badani waa dadka sida aynu noolnahay u nool, sida Soomaalidu u nooshahay ee masaakiinta ah ayaa ugu badan. waxaanu isweydiinaynaa maxaa inala gudboon. waxaa inala gudboon horta marka ugu horeysa in qof kastaaba uu ku dadaalo inuu naftiisa ilaaliyo, aynu raacno talooyinka ay dhakhaatiirtuna siinayaan iyo dadka maaragtay aqoonta waxaan u leh. waxa waajib inagu ah in aynu la dadaalno oo aynu ka ilaalino cudurkan intii aynu kari karno, dadka inta aynu mas-uul ka nahay iyo dadka inagu xeeran. waxaana waajib xooga inaga saaran in aynaan halis gelin caafimaadka dadka kale oo aynaan ka qayb qaadan cudurkani faafistiisa. waayo waxa weeyaan haddaad ka qayb qaadato adigoo og waxaad la mid tahay dadkii ku dhacay, qof dilay baad la mid tahay. marka inaynu aynu xoog u ogaano ayaa muhiima. inagoo ka duulayna nabigeena suban calayhi salaatu wasalaam casharada inaga baray cudurrada iyo waxyaabaha marka laga hadlayo iyo wax dadka dhiba. waxaynu ognahay inuu u diiday qofka cuna toonta iyo wixii lamida inaana masaajidada iman. waxaynu ognahay roob yar oo da'ay ama roob aan cidna leynayn markuu da'ayo, nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisii joogo, masaajidka gurigiisii ku dhex yaallo, inuu eedaanka ugu dar jiroon jiray dadka waxaad ku tidhahdaan ku tukada guryihiinna, roob waa roob. waxaa kaloo inu ognahay qisada dheer ee xilligii cumar bin khadaab radiallahu canhu dhacday ee laysay asxaabta kumanaanka qun ka dishay cudurkii daacuunka ahaa. markii dambe ilaahay abaala ka mariyay camar bin caas uu la yimid fikradda odhanaysa inay dadku kala durkaan oo ay buuraha galaan oo ay kala fogaadaan. tiina uu ilaahay sabab uga dhigay inuu cudur ku joogsado. aynu eegno haddaba bal xaaladda aynu ku noolahay maanta. waxaynu ognahay cudurkani inuu aad ugu faafo meelaha laisku cufan yahay ee cidhiidhiga ee dadka badani joogaan, makhaayadaha, meelaha lagu qayiro, masaajidada. runta aynu isku sheegnay, aynu eegno bal masaajidka iyo halista ka dhex dhalan karta. waxaynu ognahay masaajidka inaynu markaynu ku tukanayno inaynu ilaahay u sujuudno, gacmaha inaynu dhigno dhulka dhigno, wejigana dhulka dhigno. qofku cudurkana waxa lagu qaadaa waa qufaca iyo gacmaha uu aad u raaco. marka qofkii markuu sujuudo waxa laga yaabaa inuu wuxuu kaga tegayaa raad buu kaga tegayaa cudurkiya. dabeetana qofkii ku xigay ayaa imanaya, isagoon aayad soo qaadanaya, salaadii baa la tukanayaa, intaanu meelba gaadhin buu odhanaya, la ducaysanaya, subxaan rabbika rabbil cizzati baa la odhanaya, wejigii baa la masaxanayaayo waxa la wixii fayraska soo qaatay ayaa dib loo neefsanaya. haddaba hadal iyo gabagabadii waxa weeyaan waxaan doonaya halkan inaan baaq u diro hogaamiyaasha culamaadudiinka, dowladda iyo madax dhaqameedyada. waxaan odhan lahaa in cudurkan khatarta uu leeyahay marka ugu horeysa dadkan waa layna weydiinaya, waxa naga saaran xil baa naga saaran, taariikhduna way noqoni doontaa, qof walba halku iska taagay la arki doona. marka in dadka loo sheego sida ugu habboon ee naftooda lagu badbaadinayo, ee cudurkan looga badbaadinayo. kama hadlayno in dadka laga ilaaliyo dhimasho, inkastoo dee ilaahay uu qoray qofku marka uu dhimanayo. cudurkan wuxuu leeyahay haliso kala duwan oo ugu horeyso waxaan loo yaqaano faaliga uu ku keeni karo, neefsashada oo habdhiska neefsashadu dili karo, maxaa urta iyo waxyaabahaasoo ka qaadi kara qofka, waxyaabahaasoo dhan uu keeni karaa. marka waxaan culamada iyo dadka hogaamiyaashaba kula talin lahaa in dadka loo sharxo in ay ku tukadaan guryahooda inay ku tukadaan oo aanay wax dembiya samaynayn. hadday gurigooda ku tukadaan ay u khayr badan tahay. iminka xaaladan ku jirno in guryaha lagu tukada ay khayr badan tahay.
nabigu calayhi salaatu wasalaam salluu fii buyuutikum markuu eedaanka ugu darayay oo lahaa eedaanka saa ugu sheega salluu fii rixaalikum ku tukada guryihiina iyo halkaad joogtaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam odhan jiray marka in dadka imika loo sheego oo la yidhahdo maaragtay ku tukada guryihiina ku tukada guryihiina ku tukada guryihiina oon loo arag maaragtay masaajidaha la xidhado inaan loo arag cadaawad diinta loo hayo ilaahayna waafajiya sida khayrka qabta وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Subscribe, share, like, great page. What